السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta joogtaan insha Allah muuqaalkan waxaynu ku sharxi doonaa waxa loo yaqaano hypoglycemia oo ah sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda. Haddaba maxaa sababa sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda? Ugu horeyn, sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda waxaa inta badan sababi kara ama lala xiriiriyaa daawooyinka loo qaato xanuunka macaanka ama sonkorta ama waxa loo yaqaano diabetes mellitus. Sidoo kale waxaa sababi kara xaalado kale oo ka duwan xanuunka macaanka. Xaaladani hypoglycemia ama markii sonkorta dhiigga ay hoos u dhacdo ma ahan xanuun iyo cudur, balse waxay tilmaamaysaa inay jirto dhibaato caafimaad oo mudan in si degdeg ah wax looga qabto. Haddii uu qofka isku arko in sonkorta dhiiggiisa ay hoos u dhacdo balse aan si degdeg ah wax looga qabanin, waxay u keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad oo baaxad leh. Caadi ahaan sonkorta dhiiggeena ku jirta waxaa laga rabaa inay u dhaxayso 70 ilaa 110 mg/dl. Haddaba waxaa kor loogu soo qaadi karaa qofka markii sonkorta dhiiggiisa ay hoos u dhacdo in la siiyo cunooyin ay ku badan yihiin sonkorta ama macaanka. Arrintani waxay u baahan tahay qofka in muddo ah markaasi lala socdo oo xaaladiisa caafimaad dabagal badan markaasi lagu sameeyo ilaa intii sonkorta dhiiggiisa ay markaa dib ugu soo noqonayso xaaladii caadiga ahayd ama normalka ahayd. Sida caadiga ah, gaarigu wuxuu u baahan yahay shidaal si uu u shaqeeyo. Maskaxdeennuna waxay u baahan tahay haddaan nahay bini'aadan inay hesho sonkor ama glucose joogto ah si ay si fiican ugu shaqeyso. Haddii glucose ku jirta dhiigga ay hoos u dhacdo ama sonkorta ku jirta dhiigga ay hoos u dhacdo, qofka wuxuu dareemi karaa xaalad caafimaad. Haddaba waxaa jira astaamo ama calaamado lagu garan karo qofka inay sonkorta dhiiggiisa ay hoos u dhacday, walow calaamadahani aan sheegi doono ay yihiin calaamado xanuuno badan ay la wadaagaan, balse waxaa lagu kala saari karaa in qofka loo sameeyo baaritaan caafimaad oo la xiriira xagga dhiigga, in markaasi laga fiiriyo sonkorta dhiiggiisa heerka ay marayso. Haddaba calaamadaha ama astaamaha uu qofka isku arki karo haddii sonkorta dhiiggiisa ay hoos u dhacdo waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo wadna garaac fara badan, daal fara badan, qofka inuu noqdo qof markaasi dhacdhacaya oo kale. Sidoo kale qofka inuu noqdo mid markaasi wareersan ama dawaqsan oo kale, sidii qof dawaqsan oo kale, inuu isku arko dhidid fara badan, sidoo kale inuu arko aragiisa oo markaasi daboolmaya, ugu dambeyn inuu dareemo miyir daboolid iyo markaasi qalal. Haddaba calaamadahani waxay wadaagi karaan calaamado kale oo xanuuno kala sababi kara, balse waxaa muhiim ah haddii la arko qofka inuu dareemayo wadna garaac fara badan, daal, sidoo kale dhidid fara badan, dawaqaad, inuu qofkii wareersan yahay, in aragiisii uu daboolmayo uusan si fiican wax u arkin, ugu dambeynna la arko qofkii miirkiisa daboolmay, waxaa muhiim ah markaasi in qofkaas sonkortiisa dhiigga markaasi la baaro, oo haddii ay sonkorta dhiiggiisa markaasi ay dhacsan tahay si markaasi degdeg ah wax looga qabto. Sidoo kale waxaa jira astaamo kale ama xaalado kale oo markaas la xiriira sonkorta dhiigga inay hoos u dhacdo, laakiin aan markaa wax shaqo ku lahayn ama wax xiriira aan la lahayn xanuunka macaanka. Haddaba xaaladaha kale ee sababi kara qofka in sonkorta dhiiggiisa ay hoos u dhacdo markii laga soo tago xanuunka macaanka waxaa ka mid ah qofka inuu muddo ah uusan ama waqti dheer inuusan wax cunno ah cunin. Taasna waxay keeni kartaa qofka in markaas sonkorta dhiiggiisa ay hoos u dhacdo, oo gaajada waqtiga dheer uu qofka ku joogay inay sabab u noqon karto inay sonkorta dhiiggiisa uu markaasi ku yimaado hoos u dhac. Sidoo kale waxyaabaha sababi kara in qofka sonkorta dhiiggiisa ay hoos u dhacdo ee aan markaasi la xiriirin xanuunka macaanka ama aan ku shaqo lahaynba xanuunka macaanka waxaa ka mid ah qofka inuu daawo qaato, daawo uu qof kala qaatay oo kale inuu qaato, daawadaas oo uu qaatayna inuu u qaatay oo kaliya qofkaas inuu ku caafimaaday, ama se tusaale ahaan qof baa wuxuu qaatay daawo loo isticmaalo xanuunka sonkorta oo kale ama xanuun kale, kadib qofkii wuxuu isku dayaa daawadaas uu qofkaas ku fiicnaaday ama ku caafimaaday inuu asna qaato. Taasna waxaa imaan karta xaalad caafimaad ama se dhibaato caafimaad oo qofkii ay saameyn ku yeelan karto sonkorta dhiiggiisa inay hoos u dhacdo. Marka halkaas waxaa ka fahmeynaa in daawooyinka qaar inaad iska qaadanin, oo xataa haddaa aragtid qof inuu daawo ku fiicnaaday inaadan adigana aadan is oranin daawadan qofkan baa ku fiicnaaday aadna iska qaado ilaa inaad dhakhtar u tagtid oo markaasi aad soo hubisid daawadan inay adiga kugu habboon tahay in kale. Sidoo kale xaaladaha ama waxyaabaha
sababa in sonkorta dhiiga ay hoos u dhacdo ee aan markaasi la xiriirin xanuunka macaanka waxaa kamid a xanuunada ku dhaca beerka, iyadana sidoo kale waxay hoos u dhigaan sonkorta dhiiga. sidoo kale buro kasoo baxda ganaca ama waxa loo yaqaano pancreas, iyadana waxay kor u qaadaa soo saarida hormoonka insulinka oo ah hormoon sonkorta ka yareeya dhiiga. sidoo kale hormoonada ku jira jirka qaarkood in ay soo saari waayaan markaasi shaqadoodii wax ku filan ay markaasi soo saari waayaan, iyadana waxay keenaysaa inay xaalada sonkorta dhiiga ay hoos u dhacdo. sidoo kale waxaa kamid ah hormoonada jirka ku jira qaarkood haddii ay soo saari waayaan in ku filan shaqadooda, iyadana waxay keeni kartaa in sonkorta dhiiga ay hoos u dhacdo ama hoos u dhac uu ku yimaado. sidoo kale haddii aad iska indhatirtid astaamaha xaaladani waqti dheer waxay kugu sababi kartaa ama aad isku arki kartaa ugu dambeyn inaad miyir daboolantid, sababtoo ah maskaxdu waxay u baahan tahay sonkor si ay markaasi u shaqeyso oo shaqadeeda u qabato si waafiya. haddaba garasho u yeelo calaamadaha iyo astaamaha xaaladani ay sababto si aad durbaba ama waqti horeba aad wax uga qabatid. talo: haddii aad isku aragtid calaamadahan, raadso daryeel caafimaad meesha kuugu dhow ama xarunta caafimaad ee kuugu dhow ama isbitaalka kuugu dhow si markaasi si degdega wax looga qabto, laguna baaritaan lagu sameeyo, laguna kala ogaan doono in haddii sonkortaani hoos u dhaca ku imaaday ee dhiiga in ay sababi karto xanuunka macaanka ama haddii ay jiraan xaalado kale oo caafimaad si waqti hore loo ogaado, waqti horena markaasi wax looga qabto. haddii aad tahay qof la nool xanuunka sonkorta ama macaanka oo aad qaadatid daawooyinkaasna aysan waxba kaa tareyn, fadlan raadso daryeel caafimaad ama si dhakhtarka kuugu dhow si markaasi loo fiiriyo daawadan aad qaadanaysid inay tahay daawo saxay in kale. haddii aad aragtid sidoo kale qof qaba xanuunka sonkorowga oo ka cabanaya astaamaha sonkorta dhiiga oo hoos u dhacda, ama aad aragtid qofka inuu miyir daboolmay isagoo xanuunka sonkorowga qaba, fadlan u raadi daryeel caafimaad waqti hore. mawduucani maanta intaasuu keegahay saaxiibayaal. haddii aad waxun ka faa'iiday la wadaag asxaabtoona sii shargaray. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir, waa filaya inaad ka faa'iidi doontid barnaamijyada aynu soo gudbina. haddii aad horey noola joogteen nagu caawi laagta si ay noogu noqoto dhiirigelin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.